munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu xusiyay sanad guuridii tobnaad ee ka soo wareegtay aasaaskii shirkadda daabacaadda ee Sagalcad ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hoteelka Green Palace ee magaalada Hargeysa. xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran, wasiirro, xildhibaano, shaqaale weynaha shirkadda Sagalcad iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay maraaxilkii kala duwanaa ay soo martay shirkadda Sagalcad. gudoomiyaha shirkadda Sagalcad Cabdi Yuusuf Aar waxaana hadaladiisii ka mid ahaa marka 10 sano aad jirto ama uu businesska jiro waxa la yiraahdaa businesskaasi waa qaangaad ama waa mature waxa uu weyneen isleenahay waa qabateen waxa uu noqonayaa inuu caawa ku faani karnaa inaanu sameeynay shaqo abuur marka shirkadii aanu 10 sano ka hor bilownay ee aanu ku bilownay shaqaalaha kooban ee aanu ku bilownay tiro ka yar 10 qof maanta waxa Ilaahay mahadiya in ay ka shaqeeyaan shaqaale ka badan ama u dhow 200 oo shaqaale ah oo ka kala socda gobolada Soomaaliya. waxa iyaguna madasha ka hadlay mas'uuliyiin ka socday shirkadaha isgaarsiinta oo u mahadnaqay isla markaana hambaleeyay sanad guurida tobnaad ee loogu dabaaldegayo aasaaskii shirkadda daabacaadda ee inaan ka soo qayb galo kulankan oo kale waxa kaloo iyana hadafyada kamid ah in la abuuro shaqo oo loo abuuro da'yarta iyo dhalinyarada in shaqo loo abuuro waxa iyana halkan caawa aynu ka dhageysanay dad ka badan 200 oo qof inay ka shaqeeyaan waxaan u hambaleynayaa marka ugu horeysa maamulka iyo Sagalcad waxa iyaguna hadallo guubaabo iyo mahadnaq isugu jira madasha ka jeediyay gudoomiyayaasha saddexda xisbi qaran ee Kulmiye, Ucid iyo Wadani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan jeclahay inaan weliba gaar u hambaliyeeyo gudoomiyaha shirkadda ama maamulaha shirkadda guud Cabdi Yuusuf oo intaanu ganacsiga gelin aanu siyaasadda mar wada bilownay ku hambaliyeynaa inay noqotay company si fiican u kobcay si fiican u hawlgalay oo koray shaqaale abuuray qaranka taariikhdiisa iyo aqoontiisaba wax ka tareen maadaama ay qoraalkii inoo kaydiyeen waxa kale oo ku hambaliyeynaa waa shirkad ay dee dhalinyaro abuurtay dadka ka shaqeeya أنا أدي فرحجليين واحد مودي أنا تاي مهرد أنا مهرد هالقفة ما كيلو حنا هاي شركة بانلين هاي أو حير بانلين هاي ونوير ينجا واحد هانشها wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah Dr. Umar Shaciib Maxamed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo u mahadnaqay maamulka iyo shaqaalaha Sagalcad tilmaamayna kaalinta ay kaga jirto horumarinta dalka. shirkaddan Sagalcad 10kii macmiil ee ugu horeeyay baan ahaa wasaarad ganacsi ahaan runtii waxaan ognahay private sector isku